farmaajo ayaa salaada jimcaha dadka kula dukaday masjidka isbahaysiga islaamka ee magaalada muqdisho sidoo ku soo waramayo wariyaheena Cabdicaziz Cabdullaahi Riyali madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo salaadii jimcaha maanta masjidka isbahaysiga kula dukaday qeybaha bulshada ayaa sheegay in Soomaaliya lagu calaamadeeyay dal fuqara أمان aan ahayn taasina ay tahay labada shay ee ugu xun dhanka nolosha madaxweynaha sidoo kale waxa uu soo hadal qaaday weerarkii Pizza House oo tilmaamay in lagu laayay dad aan waxba galabsan isagoo tilmaamay in falkaas uu yahay mid aan wanaagsanayn annaga imid xumada ama magac xumada haysata caalamka naga haysta waxa weeye oo loo yaqaan Soomaaliya annagu ilaahay nagu nasteexeeyay dad muslimiin oo islaamina nahay dad wada dhashay inaan nahay waxaan ugu calaamadeeyay inaan nahay dal aan nabad ahayn oo aan amni lahayn iyo dad fuqara ah oo dhaqaale xumo haysato waana labada ugu xun ee ka soo horjeeda nolosha bini aadamka maxaa noo keenay marka arrintaas waxaa noo keenay حقيقيا وحلو به إلهي أن نقنه إلهي أن تحمد نقنه وحاول نسيي حدينا كح سأكتهين ضرات ضد مساكين وملك قحوين أيوه وقت رمضان الفجرة يا ضد شيئا يا مقع دين كصعدة وحيلاين وحلا وجه ماشي توقع عروقها قبلها دقيقها وماشي كو أفراي maxay galabsadeen maxay geysteen dadkaasi waxa lagu laayay magac muslim yaa lagu laayay muslimkee way kan qaba in dad kala laayo in naf la xalaalaysto diintee qabta waxyaabahaas waxay ka mid tahay waxyaabaha magac xumada iyo sharaf xumada loo keenayo oo caalamka noo tusay inaan nahay dad bahalla ah haddaan mas'uuliin nahay su'aalaha ugu adag oo la weydiin aan ka jawaab karin waxay tahay war maxaa ku dagaalaysan xoolaad iska socota iyo dibkeed ku socda muxuu ku salaysan yahay waxaan ku macnayna ma naqaan markaan niraahno war Afrika waa dhex gasheen xarbu ahal meel kasta adduunka ka dhacay maxaa anaga noo fiirin weydeen jawaabtu ugu sahlan waxay tahay bal noo macneeyo waxaad ku dagaalaysaan waxaad noo sheegtaan inaad tihiin dad isku maxaan ku raahdaa Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa ugu baaqay qaybaha Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan laamaha ammaanka si loo soo celiyo ammaanka iyo xasilinta dalka Soomaaliya isagoo sheegay in horumar la gaari karo haddii lagu shukriyo khayraadka la haysto leesna aamino Cabdicaziz Cabdullaahi Maxamed